kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba daawadayaal kusoo dhawaada mar degdeg ah oo naga soo gaaray magaalada San Diego ee gobolka California ee dalkan Mareykanka. 5 qof ayaa dhimatay markii dhowr nin ay soo weerareen salaada duhur ka hor masaajid weyn oo ku yaala magaaladaasi San Diego. halkaasi oo masjidkaasi ay ku xiran yihiin dhammaan dadka muslimiinta ay ku dhaqan magaaladaasi oo Soomaalida kuwooda ugu badan ay ka mid yihiin. 5 qof ee geeriyootay ayaa haddaba waxa ay kala ahaayeen nin isagu ka mid ahaa ilaalada masaajidkaasi, nin isla markaasi ganacsatada ka mid ahaa magaalada laga yaqaano, iyo sidoo kaleeto nin kale oo asna isla goob masaajidka aan sidaas uga fogeyn ku ganacsanayay. 5 qof ee geeriyootay ayaa 2 ka mid ah waxa ay yihiin kooxihii weerarka soo qaaday oo ayaga oo meeda laga dhaxela ayaguna baabuur sidaasi aan uga fogeyn goobta falkaasi weerar uu ka dhacay ee masaajidkaasi gudihiisa ah. waxaa la sheegay in raggan ay gudaha u soo galeen masaajidka xilli dadku ay isu diyaarinayaan inay salaada tukadaan. arrintan ayaa waxay abuurtay cabsi xooggan waxa ayna saameyn ku yeelatay jaaliyadaha muslimiinta ah ee ku dhaqan magaaladaasi oo Soomaalidu ay ka mid tahay, kuwaasi oo gabi ahaanba bilaabay xarmahooda ay dadka ku hayaan amaba carruurta wax lagu baro ama sida gaarka u leeyihiin in laga daadgureeyo dadka. waxaa jirta in ciidamada booliiska kala gedisan iyo kuwa ammaankaba ay halkaasi ku sugan yihiin, waxaana wararku ay sheegayaan in arrintan ay xiriir la leedahay nacaybka muslimiinta oo sii baahaya Mareykanka waayadii ugu dambeysay. haddaba si aan wax badani uga ogaano arrintan waxaan kula xiriiray si toosa khadka magaalada San Diego ee dalkan Mareykanka Jaamac Yuusuf Cali oo ka mid ah Soomaalida ku dhaqan halkaasi, isla markaasina ah ragga iyagu hormuudka u ah ama maamulayaasha ka ah iskuulada gaarka loo leeyahay ee halkaasi ku yaala, si aan bal wax badani uga ogaano arrintan iyo saameynta ay reebtay. Jaamac soo dhawo bal ugu horeyntii iga waran sida u dhacay falka weerarka ah ee masaajidkan loo geystay. aad iyo aad baa umahadsan tahay. aad iyo aad baan saara kuu salaamaya adiga asxaabta kugu xiranba. arrintaani waxay dhacday abaara gelinka hore maanta markay ahayd 12 ilaa 12 intii u dhaxaysay. waxaana ka dhacday masjid abubakar la yiraahdo oo xarun weyn oo Islamic Center ah oo magaalada San Diego ku taala, oo xarun lagu cibaadaysto iyo iskool islaami isugu jirta. 2 nin ayaa soo weeraray masaajidka, waxayna ku dileen 3 nin sidaad sheegtay. ninkii waardiyaha ahaa waqti dheer meesha ka shaqaynayay oo nin muslim ahaa, iyo 2 nin oo kale oo iyaguna midna dadka cibaadaysanaya ka mid ahaa, midna meesha dadka sida gaarka ugu xiran uu ahaa, businessna uu ku dhex lahaa. marka 3daas ku dhintay, 2dii soo weerarayna iyaga ruuxooda way dhinteen. waayahay, xaruntu waa xaruntan Soomaha masaajidka. xaruntaas waayahay, bal waxaad iga warantaa booliis fara badan ayaa goobta yimid. 3da qof ee dhimatay ee meeshaasi joogtay dhalasho ahaan yay u kala dhasheen? waxay u kala dhasheen nin wuxuu ahaa Suuriyaan oo nin oday oo weyn waqti badan magaaladan deganaa, ilmihiisa ay waddanka ku barteen. ninka kalena wuxuu ahaa Falastiini, isaguna ninkaas ka da'yar ahaa, magaalada ka ganacsanayay. ninka kalena wuxuu ahaa nin muslim ah oo dadka madow ah, sida saxda meeshuu kasoo jeeday ma aqaan, laakiin nin caan ah oo dadka ku xiran oo weliba Soomaalida macaabil fiican ay isku dhawaansho badan dhalinyaro badan ay saaxiibo ahaayeen, meesha lagu wada cibaadaysan jiray buu ahaa. marka 3 nin saasay kala ahaayeen. Jaamaco bal iga waran, masaajidkan ma aha masaajid Soomaalidu ay ku xiran yihiin oo ay joogeen marka weerarka uu dhacay? sida saxda inta xilliga qof oo joogto Soomaalida ma xaqiijin karo, laakiin masaajidku in general waa masaajid Soomaalidu aad ay ugu xiran tahay. ilmahoodu ay iskoolka masaajidka uu leeyahay ay ka baxeen, ilaa haddana ay dhigtaan. waa masaajid aad loogu xiran yahay oo dadka Soomaalida iyo Islaamka oo dhan ay ku wada xiran yihiin. Soomaaliduna xubin weyn ayay ka tahay masaajidkan, si gaar ah dadku ay ugu tukadaan oo ay ugu xiran yihiin. waa tahay, bal iga waran falka markuu dhacayo weerarka ah maxaa soconaya? xarunta maxaa ka socda masaajidka gudihiisa? xarunta iskool baa qaybta kore ee masaajidka ah oo wax lagu dhigto, oo madaraso islaami iyo iskuul iyo wax walba isugu jirta. masaajidkana dadku waxay usoo dhawaanayeen xilligii salaada duhur oo soo dhaweyd ayaa la isku qaban qaabinayay. marka meesha ma aanan joogin, laakiin dee jawga argagaxale baa la galay. dhimashada iyo dhibaataduna intaasay ku ekaatay.
hadda masaajidku waa xiran yahay laguma tukan karaa la yidhi baaritaan baa ka socda boolis iyo hay-adaha law enforcementiga oo dhan baa ku mashquulsan wixii kasoo baxana waa arki doonaa haddii laha yidhaahdo diyaaradaha qumaatiga u kaca kuwa kaleeto oo amniga FBI-di booliiskii gobolka waxyaabo kala gedisan ayay dad aad u argagaxsan oo goor dhaweyta aan la hadlay ii sheegeen in goobihii oo dhan ay xireen baaritaanana ay socdaan isla markaasina laga daadgureeyo xataa xarumo kaleeto oo dadka muslimiinta ay leeyihiin oo gobolka ku yaala dadkii ku cibaadaysanayay maxaad sawirka guud naga siin kartaa guud ahaan siday wax u socdaan haatan sawirka guud oo meesha ka jira waxa waaye islaamka oo dhan ayaa arrintan argagax gaara ay ku abuurtay si gaara ayaa ummaddu cabsi ay ugu jirtaa meel kasto masaajido badan baa jira keligiis maaha masaajidoo dhan baa waxaa ka jira awareness iskoolaadka islaamka annaga iskoolaad meesha ku leenahay saas oo kale cabsi guud baa horta jirta oo arrintan waa arrin argagax leh oo dadka islaamka magaaladan degan soo food saartay marka jawi waxa lagu jira xasaasiya hadda wax la hordhaco la sheegi kara ma leh laakiin dadku waxay sheegayaan iyo ciidamadan iyo FBI-da iyo booliska noocyadiisa kala gedisan hay'adaha dambi baarista waxaasoo dhan waa dhacdadii ayay ku mashquulsan yihiin taasaa dadka xoogaa waxay sii gelinaysaa war meesha su-aalo badan baa la isweydiinayaa sida adigoo aad ii weydiisa hadda su-aashaas waa tahay salaada ma lagu jiray ma la geli rabay kolleyba 11 subaxnimo ayaa la sheegay xilliga markay ahayd magaaladiina San Diego in weerarka uu dhacay waqti ku dhow marka masaajidka gudihiisa ma la joogay markaas waa go'day jaamac وهجاج داود يال جامع وحكجو أي خطك هدي وكسو نقدنا وان إدين سعلين دونا وحاجرت السدا ضد فربضان أو كل قن مجال ذا إيش جيان إنها تنبأ السعودان كلامه هيدها أمنية قبل كاسي كاليفورنيا حدود كويا لا مجال ذا سان دييغو iyo sidoo kale qaybaha kala gedisan maamulka magaaladaasi hadii ay noqoto mayorka magaalada iyo qaybaha laamaha amniga ay leeyihiin haatanba kuwaasi oo lagu gorfeynayo sababaha ka dambeeyay in weerarkaasi uu dhacay in kale bal jaamac baa ku soo noqday waa tahay jaamac soo dhawow mar kaleeto waxaan rabay inaan ku weydiiyo qadka naga yar go'ay ku soo noqo mar kaleeto waxaan rabay inaan ku weydiiyo labada nin ee geeriyootay haatan ayaguna la ogaada ayagoo baabuur dhexdiis ku jira inay geeriyoodeen hubkana haysta sida la sheegay ragga haatan la filaya inay ka dambeeyeen falkan loo badinaya inay yihiin ma la ogaaday cidda ay kasoo jeedaan iyo waxay ahaayeen wallahi hadda ima kala cadda aniga sida xaqiiqda ah inay dhinteen sidaa sheegay sidoo kale mar dib baanu ka ogaanay marka hore saddexda dhimashada ee dadka ay dileen baanu ogeyn laakiin hadda inay dhinteen uun baa la xaqiijiyey ما كان عضين كنا سيدا صحدا عدة هي لقوان هلي كرنا صفر واتهاي جامعة بل واحد يقول انت حلقاس مساجدكم اللي وجروا من العبادة سنة الصلاة دي مالا قلي مصه صلاة دي لما قلنا ولي لما قلنا المركز حلو مريح هيك لكن صلاة دي والود ديار قروبي تبقى مساجدكم إيمان عين dadka ilmaha qaadan raba oo iskoolka dadka ilmahooda waartooyin waalidiinta ilmahooda dhigtaan ayaa inta badan iyagu meesha ka agdhowaa marka weli salaad xilligaa lama gaarin laakiin waa la isku qaban qaabinaya waa taqaanaa markii duhurkii soo dhow yahay dad baa weesaysanaya dad baa quraan sii akhrisanaya dad baa meesha ku ballan meeshu meel weyn oo islaami center oo runtii aad xarun ah waaye maaha masaajid oo keliya maaha marka waa meel runtii aad dadka islaamka micno weyn uga fadhida warbaahinta maraykanka qaar baa durba waxay qorayaan falkan inuu ahaa fal naceeb ah ma ku dhawaaqeen booliiska ama laamaha amniga ee gudaha magaalada San Diego ilaa ay haatan falku waxa uu ahaa xataa si sax ah idin wax ugu dhawaaqay waa taqaanaa baaritaan baa la galaa waa laga baaraan dagaa marka way fiirinayaan laakiin way iska caddaa obviously waxaan waa inay nacayb tahay message la soo weeraray dad qori wata yimaadeen dad islaam ay ku laayeen waa iska nacayb si mataqaan obviously laakiin weli official news soo baxay oo ka soo baxay hay'adaha daba baarista iyo booliska iyo law enforcement weli ma jiro waata bal waxaad iga warantaa siday Soomaalidu ugu xiran yihiin masjidkan Soomaalida masaajidda waqooyiga Ameerika oo dhan intaan ognahay maamulayaal ay ka noqdaan masaajidada imaamiye ay ka noqdaan ilmahooda ku xirma dadkoo dhan ku xiran masaajidkan San Diego sidee bay Soomaalidu uga agdhowdahay masaajidkan Soomaalidu way ka agdhowdahay imaamka ma aha maamulkiisa dad kala inta badan gacanta ku haya laakiin Soomaalidu qayb weyn bay ka yihiin iskoolka masaajidku uu leeyahay oo ku xiran ayay dadkii gabdhihii iyo wiilashii ka baxay ilmahay dhigteen baa hadda dib u dhigtaa waa garan kartaa waqti dheer
ayaa masaajidkaanu jiraa marka Soomaalidu dadka iskoolaadka dhigto oo ku xiran oo masaajidka qayb weyn ka xaafadda iyo area kulana si aadka u degan bay ka mid yihiin Soomaalidu waa tahay bal ugu dambeyntii hadda sawir noocay ayaad siin kartaa cabsi intee la eg bay arrintan muslimiinta ku tahay Soomaalida ku tahay guud ahaanba ee ku dhaqan magaaladaas San Diego oo jaaliyadaha ugu badan ee muslimiinta ay ka mid yihiin Soomaalida sidee bay idin saameynaysaa gaar ahaan adigoo kale oo dadka iskoolada madaxda ka ama meesha ku haysta kamid ah wallahi saameyn weyn bay leedahay anaga ilmaheena magaalada jooga oo iskoolaadka ku jira inkastoo iskool kale ay ilmaha gaari aadaan iskoolka ruuxiisa maanta dad badan baa ilmahooda xilli hore qaatay sabab dadku way argagaxeen dadku marka saameyn weyn bay guud ahaan Soomaalida iyo dadka Islaamka magaalada degan oo dhan arrintan ay ku leedahay waa arrin argagax leh waa arrin cabsi leh waa arrin su'aal gelinaysa in dadku ay masaajidada ku tukadaan marka laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa inaysan midaan mid lamid aysan ugu soo laaban dadka Soomaaliduna kulay way ka feejigan yihiin arrintan maantana waa dhacdo runtii aad noogu cusub magaaladan khaasatan San Diego ayay ahayd jaamac Yuusuf Cali ayuu kaasi ahaa oo kamid ah Soomaalida jaaliyada ah ee ku dhaqan gobolka California magaalada San Diego oo Soomaalidu ay u badan tahay jaamac waa ku mahadcelinayo waqtigaaga aad baa mahadsantahay daawadayaal haddaba waxaa naga xasuusinah in xaruntan iyo wararkeeda aan si joogto ah idinla soo socodsiin doono xarumaha iyo laamaha amniga kala gedisan ee waqtigan kulamada halkaasi kula awgeed oo iyagu ka wada hadlaya sidii lagu ogaan lahaa wixii ka dambeeyay falkan iyo sidoo kale raggan haatan falka geystay cidii ay la shaqeynayeen ee ka dambeysay amaba xataa iyagu halka ay ka soo jeedaan waxaynu wada ognahay in waayadii ugu dambeysay gudaha dalka Mareykanka ay aad u soo badanayeen falalka naceebka ku salaysan oo qaarkood dilalka dadka loogu geysanayo kuwaasi oo sababa la xiriira loo tirinayo maamulka madaxweyne Donald Trump oo dadyoga soo galootiga dadka muslimiinta ah dadka laga tirada badan yahay si gaar ah loogu eedeeyo in ay u beegsadaan waa eedeymaha ka imaanaya dhinacyada kala gedisan ama warbaahinta Mareykanku ay badi qorayso haddaba wax kasta oo ku saabsan arrintan iyo dhacdooyinka kaleeto ee guud ahaan baan isha ku hayno waxaad kula socon doontaan